انتوا عنا وناس صاحبي الملك السوداني على كتشوف تام وحنا كل سلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الكسود وهذا حقيقة نيوز يقولي بعتنا هلك إن فيسبوك كلنا أنا جابر ملك السود نقدر دعوانا سنة صاحب سي شير قري وسي جود بي لو ذاك أصحاب هذا كله موضوع عادي نسي جود قلنا ما أنت وحكوا سبسين هي حكومة الدولة ديانك الصومالية وتابروا فرت عيدا عصب عيدا كانوا لو بيرون دون عيدا كي هريد ديانك الصومالية لها هذا بريهو دنبي حكومة دها تكتلسا تكتيجا وحكومة الدولة ديانك الصومالية أو هجاميو مصطفى محمد عمر أيها لو دلع عين شري إن الدريالين عيدا كجار كأولاد هاي ديانك الصومالية اللي يقنليو بوريسكا يضو إن بدن با لو دلع عين شري هذانا واحد مودعين هاتن بور كيسكتشافين أو أي حق ودرياليان عيدا كينا أي كردينيان دوام بهاد مركي أي جواري جاري إلا سديتن جديد ciidanka ah ay guddoonsiiyeen waxa haatana ilaa 5 kun oo lagu biirin doono ciidankii hore ayay tababarka u fureen iyada oo looga furay tababarka magaalada birqod oo ku taala gobolka Jarar waa magaalo qadiimi ah oo ku taala dhinaca gobolka Qorxay hadaba bal intaynaan u gudagalin mowduuca faahfaahintiisa muuqaalkan kooban ila daawo كان كنت قصدني أهاني يعني ما الله مالك دولة هالكات شوفنا سلفك تاجنيدا إن دبيس الروح وصي وستاجي وتدربها بالقام كسبعي لكن ما أنت عكت وصله لسين سلفك واد إلى النسين فقد كنا واد إلى النسين ولما قبلي بلوك مريقة قاعد وبص عباية بالهالمر يقول لكن من ملكه أنا أول ما كان ورثت برني إن ماشي أنا ويبرون يروح يركبها قرنه معلم كنتوا هالك نجا سوق عيون الجراحان دقيقة هو حنش كان رفاضه نفط هذا بتبادين رفاض كان هالكم بورد كان عادة هذه يكون بتبادين مالك بدن أو براءة أو حبل لوسر هذي أياد مري وهاي عسكر بنا عسكر النجا كلام بين مسكين إذا كنا وين الدل كين الدفاع عيسى الدين كين الدفاع عيال نيت ويدك قناط إنه نودن كأننا مركز يجيكم شوكتان الرفع دانا إذا النقطان وبودن نقط هذيك لو قالك كستا إن يربي نجا قصة. رزايقة ودفاعية. عندك شرفتنا المرعو كل واقع قبل كسيتي ولن يمنال ولو قلاص كجرو إنه بنتان إيه ديارو. قبل كسيتي. صاحبي أنا كنت عنا موضوعين tababarka ciidanka cusub loo furay ayaa ku soo aaday xilli waddanka Itoobiya uu noqday goob dagaal oo xoog kala duwan ay ku dagaalamayaan ama seen ay ku hardamayaan qoomiyadii waddanka Itoobiya qoomiyada ka awood badneyd ay ku duulayso kana aargoosanayso qoomiyada walbana dhul balaarsi wado waxa kale oo xilligan ciidankan la tababaraya ku soo aadaysa iyada oo qoomiyadaha deegaanka Soomaalida ee xuduudda la ah qoomiyada kamid ay dhul balaarsi ku wadaan oo ay gaar ahaan qoomiyada Cafartu gobolka City dadkii deganaa ay barakicinayso iyada oo xasuuq baan halkaasi qoomiyada Cafartu ka geysatay dhinaca kale ciidanka Itoobiya ayaa isaguna daciifay oo dagaal Suudaan kaga jira dhinaca kale deegaanka Tigray kaga jira saasay tahay ciidanka dowladda Soomaalida xilligan lagu soo biirinayo dadka falanqeeya arrimaha Soomaali galbeed waxay tilmaamayaan inay tahay tallaabo aad u qurux badan oo ay xukuumadda dowladda Soomaalidu qaaday inkastoo in badan lagu dhaleeceeyay inuu Mustafa Cagjar daryeelin ciidankiisa hase ahaatee haatan waxaad moodaa in arrintaasi beenowday oo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar qaaday tallaabooyin aad u qurux badan ciidankan oo noqon doona ciidan kala badbaadiya shacabka Soomaaliyeed iska qabiiliga ah ee dhulka bannaan isku haysta iyo waliba tana xoogaga cadawiyada kala duwan ee iyaguna harraha ka xiga ee dhulkooda doonaya inay soo balaarsadaan iyo waliba tana ururada argagixisada ah ee ka dagaalama bariga Afrika haddaba seed waaragtaa arrintan ciidankan muxuu soo kordhin doonaa waxa inoo soo socdo khudbadii madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar uu goobta ka jeediyay ayaan haddana idin kala dhaxbaxayay soo bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan maanta
halkan imaado oo kala qayb galo tababarkan idin bilowday bil ka hor isla markaana sii socon doona ugu yaraan 2 bilood oo kale sidii hoggaanka nabadgelyada iyo Jalan Xaajiba ay sheegeen xukuumadda waxaa ka go'an in la tayeeyo lana kordhiyo tirada ciidanka aynu leenahay ee gaarka dad fara badan oo xilligii isbeddelka wixii lalahaa la socda kulley waxaan filayaa maanta inay arkaan xaqiiqo ka duwan tii markii hore la damcay ciidamada in dhex geliyo ay ahayd in xukuumaddani ay tahay xukuumad kala diraysa ciidanka in la kala diray iska daayay intii isbeddelku dhacay kadib waxaa hadda ka hor la tababaray ciidan 2,000 ka badan oo xoogga gaarka hadda tababarkani waxa uu wuxuu saarayaa qorshahaas wuxuu saarayaa in ilaa iyo 5,000 la tababaro iyadoo inkastoo wax yar ka dhiman yihiin taladii lagu talagalay inta halkan timid laakiin maamuladii ay soo wadaan intii kalena ciidankaas la tababaray 2 sano keliya wuxuu ama la ekaanayaa ama uu u dhigmayaa ciidamadii jiray 10 sano inaga horreeyay tira ahaan marka dhab ahaan taas waxay muujinaysaa aqoonaanshaha dawladda in ciidankan lagu xisaabtamo inuu yahay ciidankii nabadda deegaanka sugi lahaa intaa keliya maaha waxaa la soo iibiyey gaadiidkii ugu badnaa abid intii ciidanku uu jiray iyadoo gawaari ka badan 70 ama ku dhowaad 80 gawaari hadda lagu wareejiyey ciidanka halka muddo bil gudaheedana ay qorshaysan tahay in la soo iibiyo 150 gaari oo kale oo iyada aan filayno ugu yaraan 80 kale in ciidamadan la siin doono gaadiidkaasi wuxuu ciidanka u sahli doonaa inay si dhib yar shaqadooda u gutaan maadaama dhibaatooyinka ugu waaweynaa ciidanka ay ahayd dhinaca agabka in laga xaqabtiro arrinta waxaa kaloo soo socota in iyadana qalabkii kale ama ha noqoto hubka ama ha noqoto dharka ama ha noqdo waxyaalaha marka aad safarada gelaysaan meelaha board kale oo kale afka laga xidho waxyaalahaas oo dhan in si ka duwan sidii hore ciidamada lagu keeno waxaa socota dib u habayn ballaaran oo lagu samaynayo qaabka maamulka guud ee ciidanka taasoo talagalku yahay in ciidamadu iyo regimentiyada iyo brigadyadu meelaha ay joogaan si ka wanaagsan sidii hore dhaqaaluhu u gaadho maamulka ay ula socdaan cadcadaan loo muujiyo sida xaaladdu tahay marka arrimahaasoo dhan waxaan aaminsanahay inay kor u qaadi doonto tayada iyo moraalka ciidanka idinka intiina tababarka ku jirta sidii hadda hobolladu ay soo dardaarmeen waxaa loo baahan yahay inaad waajibaadka idin saaran fahantaan inaad deegaanka soomaalida oo dhan aad ciidankeedii tihiin eryadii ay ku hadlayeen hobolladu waxay idinku dhex jirtay idinku siyaasiyiin inaydaan ahayn inaad tihiin ciidankii amniga inaad cid walba u dhaxaysaan inaad siyaasad ka madax bannaan tihiin arrimahaasi waa kuwa laydinka fadhiyo inaad muujisaan waxaan jecelahay inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan ku ammaano guud ahaan ciidanka liyuuga ama ciidanka gaarka ee deegaanku kaalintii muhiimka ahayd ay ka qaateen dejinta nabadgelyada iyo 2 sano ee ugu dambeysay hadda isbeddelka ballaaran ay ka sameeyeen dhinaca ilaalinta xuquuqda shacabka iyadoo taas aan rabno inaad sii xoojisaan waxaad ciidan u tihiin waa shacabkan maanta colaad sokeeyo oo dad dhexdeena taalla haba yaraatee ma jirto tu kale oo la abuuray oo cid kaloo cid u adeegsanaysaa ma jirto sidaa daraaddeed ciidanka aad u shaqayna ciidanka waxaad u tihiin waa shacabkiina marka inaad ixtiraam iyo wanaag shacabka kula dhaqantaan maadaama ay waalidiintiin iyo walaalin yihiin taas iyadana fariinta aan idin farayna weeye dhinaca kale waxaa laga hadlay in badan in dhinaca akhlaaqda isbeddel ballaaran laga rabo ciidanka kaasoo ah in waxyaalaha mukhaadaraadka laga fogaado in dhalinyaro maadaama aad u badan tihiin aad ku xisaabtantaan ciidanku inuu yahay shaqo sida kuwa kaleba loo galo dalacaad leh oo hore loogu hormari karo oo noloshiina aad ku bedelaysaan taana waxaa laga rabaa xukuumaddu inay qaado tallaabooyinkii arrimahaas muujin lahaa sida in ciidanku ay helaan caafimaad meel walba oo dhakhtar ay u tagaan iyaga iyo qoyskoodu in ay si toosa bilaa kharash in lagu daweyn karo inay maaragtay laga shaqeeyo hawshaas oon filayo 7 gudihiisa in la soo dhammayn doono oo aan ka ballansannahay hoggaanka nabadgelyadu inuu shaqadii loo baahnaa ka qabto waxaa kaloo loo baahan yahay dhanka guriyeynta
iyo dhanka isbitaal ciidanku leeyahay oo u gaara intaba in laga shaqeeyo marka xukuumaddu dhaqaale aad u fara badan bay gelinaysaa ciidanka tirada inta leeg hadda soo baxaysaa waxay xoojin doonaan kuwii hore ee shaqadu ku badnayd sabab shaqada faraha badan ciidanku qabanayaan laftigooda marmar way ka timaadaa inay maaragtay stress iyo ka qaadaan cadhooyin maadaama shaqo adag qabanayaan haddii tiradu badato waxay keenaysaa in askartu ay iyaguna shifti kala duwan helaan oo ay nastaan waxaan midgu doon صاحب المدحوين مصطفى محمد عمر oo inta badan la socda baraha bulshada ama soo inta badan Soomaalida waxa ay hadal hayso aad uga warhaya in badanna lagu dhaleecayn jiray ama soo in badan la oran jiray madaxweynaha Mustafa Maxamed Cumar wuxuu tirtirayaa ciidanka xooga gaarka ah ayaa ku jawaabay ciidan aanu tirtirno ama soo baabi'in iska dhaafe ciidanku intii hore u leekaa in la eg ayaanu ku dari doonaa madaxweyne Mustafa ayaa yiri ciidanka lama tirtiri doonee waanu kordhin doonaa waliba tan intii hore in la eg ayaanu mar labaad ku dari doonaa xagga awoodooda gaadiidka iyo waliba tan hubkoodii iyo dhaqaalahooda iyo xibrashadooda iyo tayadoodaba waanu kordhin doonaa tira iyo tayaba ciidanka dowladda Soomaalida kor ayaan u qaadi doonaa iyo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar yiri dhinaca kale waxa goobta ka hadlay taliyaha ciidanka liyu booliska waa General Maxamed Axmed bal hadalkiisa ila dhageystay isagana dowladdu go'aan ka qaadatay oo hadda ka hor ciidanka tayadiisa iyo tiradiisaba iyo saanadiisaba inay kordhiso ay ballan ka qaaday waqtiga isbeddelka laga bilaabo marka tii bal rumeeyay oo imka anagina noo soo dhacday hawshin inaan qabanno wada aragteen meeshan ciidan 5500 ay dawladdu ugu tala gashay wali gobol aan soo gaarin oo bad ka dhiman yihiin way jiraan laakiin ciidan 4000 ku dhow ayaa meesha ku jira oo kun aan ugu tala galay ciidan commandosta sida caadiga oo loo tababaro oo special commando laga dhigayo kuwa kalena ciidamada kale lagu kordhinayo guud ahaan wada aragteen hadda ka hor jijigo ahaa xarada tababarku xaggana u soo bedelay xaggan waxaan ugu soo bedelay ciidanku si caadi oo dhul oo ku istaraatiiji oo ku tababaran karo oo wax walba ka heli karo caafimaadkiisa iyo hawada laftigeedu hawada meelaha uu ka shaqeynayo hawo u yar inay noqoto marka tii way noo hirgashay kharash badan baa lagu bixiyay kaam dhan oo ilaa 5 ruux qaaday ayaa laga dhisay xerada magac baan u bixinay oo saraakiishii hore ee shahiiday taariikhda lahayd magaceedii marka xerada shalaga khadar tababarka liyu booliska shalaga khadar ayaa la yiraahdaa shalaga khadar maxamed fadal ayaa la yiraahdaa taariikhda ciidankii hore ee shaqadiisina la xusuusto kuwan kalena raggii hore ciidanka waxay soo sameeyeen xaaladii kale ka soo gudbeen loo sheego iyaguna ay tababar fiican ay qaataan ee dalkooda iyo dadkooda difaacaan oo ciidanka ay xoojiyaan ayaa loogu tala galay marka muddo bil ah ay imka tababarka bilaabeen si fiicanna way u wataan guud ahaan xukuumadda deegaanka oo ka duuleysa tayeynta iyo tirada iyo tayeynta ciidanka liyu booliska qorshihii ay qaadatay ee ahaa magaysahay in kor loo qaado tayadooda iyo tiradooda ciidanka muddada ay tababarka ciidanku qaadanayay waa 7 beri ama 4 toddobaad 324 saac bay qaadanayeen tababarka waxay barteen cashirka koobaad ee tababarka ee magaysahay soo qorshuhu yahay sidiisa 3 bilood guud ahaan waxay hadda qaateen magaysahay 7 beri 4 toddobaad 324 saacadood waxyaabaha ay barteen cashirkii koobaad ee tababarka ayay barteen oo ka kala kooban selfiga salaanta jimicsiga oo joogto ah orodka dheer iyo orodka gaaban ayay barteen guud ahaan magaysahay qorshaha markaad eegto natiijada hadda maanta indhihiina idin macallin ahaba natiijo aad iyo aad loogu farxi karo ayaa waqtiga ay tababarteen ayaa la gaaray xagga dhiiranaanta iyo in ka mid la noqdo indhihiina idin macallin ahaba aan malayn dhalinyaradu moraalka ay haysay iyo sida ay tababarka u qaateen ee tababarkooda ka muuqatay ayaa wax weyn ku tusaysa inay dhiiranaan aad u badan ay haysato iyadoo weli ana xukuumaddu mar walba dee magaysahay ayada lafteedu ay garab taagan tahay waa tuxfadii koobaad ee magaysahay xukuumaddu iyadoo qalin jabintii la gaarin hogaamintii u sareysay ay la kulanto weeyaan marka dhiirigelin badan ayaa magaysahay jirta Hey!
maalinkaan ka tagay ee gasadana ahaanayaan maan aan lahayn maalinka dhawadan halkaa joognay selfiga taagnida ayna dhibaysay oo ruuxu si uu u istaagay wata dalabaha qalqaamka sida ahayd laakiin maanta cagta waa isla helayseen selfiga waad ilaalinayseen raqadkiina waad ilaalinayseen weliba gabdhihii blog mariga ahaa aad ugu sacabeeya bal hal mar idinku laakiin milmilku annagu markaa ursa ku tababaranayni meeshana way waroontahay ruuxii arkay baa garanay macallimku intuu halka naga soo kiciyuu na garaahaan dhiiqadana wuu waxayn jiray markaad rafaado naftaaday badbaadin rafaadka halkan boodhkan cadceedan adigay ku badbaadini meelo ka badan oo buura ah oo xabad lagugu soo ridi ayaad mari waayo askar baan nahay askar innagoo kala ah baynu iska celin idinkuna waa inaad dalkiina difaaciisa iyo diintiina difaaceeda ahaad niyaddu idinka goonaato innaguna waddankeenna markaad idinku joogtaan aad u rafaadaan aad ciidan u noqotaan unbu waddan noqon haddii kale qolo kasta in yarun bay naga goosan xuduudahayga waa difaacayaan ciidanka sharafta leh ee magacooda ku dhawaaqayo gobolka City oo dhan iyo meel walba qalalaasi ka jiro inay u dhintaan iyo diyaar u yihiin gobolka City difaacay